بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال كسر دوادا channel كيغا أستاذ حبيب عبد الرحمن. فضلا هدي أتكو عصبتهي سبسكرايب تسارو قنبليل كنفرو سي أي برامجتو هدب أي كوسو قاران. إن شاء الله تعالى وحين كهل لدونا عاوة موضوع كسابسن قفك حالة أي أغتي مادو عيجس إن لغو سمييو وقتك أوهردو إن لعيجيو عناها لغو دغو قفك قلل لغو سببو قفك أو إسدقاقين كري وايو qofku uu xataa isku dayo inuu cid u qayshado ama uu codkii dadka uu maqlayo ama waxa loo yaqaano uu isleeyahay qofka agjiifa haddii xaaskiisu ay agjiifto ama haddii zawjkeeda ninkeedu agjiifo isleeyahay qofka u qaysho ha ku saacido ha ku caawiyo waxaan qalalka kugu sabay iska dulqaad hal mar baa hab qofkii lagu dhahaya markaasaa la qabsanaya carabkaa laga qabsanaya oo dhuunta laga qabsanaya oo dhagaha laga qabsanaya qofkii maskaxdana waa laga qabsanaya sidoo kale waxa xaaladda u sii dheer qofka in lagu sababo in xataa naqaska marka qaar lagu sii dhajiyo xaaladda ikhtinaaqa waxa sababa oo inta badan qofka ku dhiba waa masaljaanka waa jinka waa min asbaab kutusinaya in uu ku dhibayo jin min anwaacihi ama ha ahaado caashiq jaathuma hama ha ahaado mid kaloo khaadim saaxira oo sixirkii lagu sameeyey kii u shaqaynayay ama ha ahaado mid asbaab alcayni walxasad ku yimid saddexdaa xaalaba wuu imaan karaya laakiin xaaladaas asbaab buu ku yimaada inta badan qofku marka uu habeenkii seexanayo hadyiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo diinteennuba waxa ay nafaraysaa qofku in uu naftiisa xasino oo uu ka ilaaliyo dhammaan wax kasta oo dhibaato iyo khalkhal ku keenaysa waxaana loo dardaarmay oo qofka lagula taliyey in uu xoogga saaro adkaarta iyo weysada marka sababta koobaad ee waxaasi ay habeenkii qofka ugu imaanayaan waa in uu dayacay asaasiyaadkii hurdada ama waqtiga habeenkii looga baahnaa oo ahaa inuu weysaysto oo qofkii isagoo naftiisii ay xasinan tahay uu markaas seexdo ama uu adkaartii mucaawadateenkii uu ka tagay asbaabta labaad ee walaalayaal inta badan sababta waxaa ka mid a oo jinkaasi uu waqtiga u yimaadaa waa inta badan dadka seexda maa bayna alcasr waalmaghrib aw guruubi الshams waqtiga u dhaxaysa casarka dad baa jira bilmatalan maalinkii bay shaqeeyaan marka maalinkii ilaa labada saddexda waa ay shaqaynayaan wixii casarkaa ka dambeeya unbaa caado u ah inay seexdaan marka ama inuu habeenkii saameeleeluu rabaa ama inuu fresh isagoo ah soo kaco laakiin hurdada caadada u ahi waa maa bacd alcasr xilliyadaasi waa idraab annowm xilligaa dhakhaatiirtu xataa way mamnuucdaa oo qofka lagulama taliyo inuu seexdo marka jinkani wuxuu uga faa'iidaysanayaa qofkii waqti khaldan buu seexday xataa waqti sunno ah ma aha hurdadaas inta badanna waa cudur waqtigaasuu u imaanaya qofkii u dhibaya ataxadda qof caado ay u tahay galabkii inuu seexdo oo xanuunkaaba laga waayo mustaxiil waxaanba dhihi karaa maba jiraba subxaan allah waxa weye jaathuunka ama jinka caashiqa ah ama masaljaankaasi waa u imaanaya qofka waqtiga markaasuu qabsanaya inta badan waa la kulmaya xaaladda saddexaad walaalayaal waxaa sababa inuu qofka ugu yimaado xaaladda uu qofku inta badan janaabada ku seexdo waa uu yimaadaa oo waa la arkaa qofka xaaskiisibuu hadda u galmooday galmadiiba kama qubaysan horuu kasii seexday ama gabadhii horey kasii seexatayba taasina waa ay sababtaa xaalaadku waa ay fara badan yihiin waxaa ugu sii daran xaaladda
qofku waxa loo yaqaano inta badan uu ka tago weysaday adkaarta waayo haddii uu labada asaasiyan ka dhigto way adag tahay qofku meel uu u soo marana waa uu waayaya marka xaaladda qofku inta badan marka uu la kulmo oo si kadisa uu u arko oo jaathumkaasi uu ka soo dego oo uu qofkaa qabsado shayga ugu horeeya ee uu niyadiisa soo gelinaya waa in ay noqotaa kelimada laa xawla walaa quwata illa billahi alcaliy alcadiim xataa qofku haddii uusan afkiisa ka dhihi karaynin oo marka afkii la haysto niyadda ayuu ku qabanaya laa xawla walaa quwata illa billahi alcaliy alcadiim lambar 1 ثانيا قضب كلابات وحد أخرنيسا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العلي العظيم أما وحد أخرسانيسا حديات أودد أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة حالة صدح لامت كم إذا أد أخرستت وكسي دينيا وكافقيا وكابحيا وحاكله oo aad u baahan tahay waqtigaas inaad akhrisatid aayatul kursiga oo macruufa aayatul kursiga waa min aham shay waa min aham al-asasiyat aad u baahan tahay oo rasuulka kaleey salaatu wasalaam marfara badan buu tilmaamay inuu qofku u baahan yahay inuu aayatul kursiga laazimo khaasatan waqtiyada xaaladkan oo kale uu la kulmo waxaa kale oo aad akhrisan karaysaa a'uudu bikalimaatillahi taammaati min sharri ma khalaq a'uudu bikalimaatillahi taammaati allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun ila akhiriha taana waad akhrisan karaysaa horena waa uga hadlay waxaad kale oo akhrisanaysaa muawwidataynka rasuulku kaleey salaatu wasalaam mar walba oo uu dhibaato la kulmo ama meel mugdiya ama uu mushkilad dareemo ama uu yiraahdo meesha tan waxa ka dareemaysa in aysan tahsiin uusan jirin inta badan muawwidataynku ku ordi jiray isla markaa muawwidataynku akhrisan jiray marka muawwidataynku qulcad barabbina iyo qulcad falam marka inta qofka haduu la yimaado waxa habeenkii ciijinaya ee u iimaanaya ee qofkii noloshii qalabka ku sababaya ee ku dhagaya ee awoodii ka qaadaya waxaas qofku waa uu ka ladnaanaya waa uu ka buskanaya waxaas waa uu ka baxaya umana soo dhawaan karayo insha Allah ta'ala biidnillahi al-mawla marka xaalad fara badan ayaa sababa jinka anwaacdiisa kala duwan baana qofka u yimaada marka saas aad u ogsoonanaysan insha Allah ta'ala walaalaha inta badan aad ka isoo weydiiya wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam